يا أيها الذين آمنوا كوي إيمانك لغا هليو لا تلهكم يينن إذن مشغولين أموالكم ولا أولادكم هكذا مشغولين أولادين يا عرورتين عن ذكر الله إلهي سبحانه وتعالى حسيديسا يا عبادتيسا هكذا مشغولين ساكا واتسو توستي الدنيا تكون مشغوشة قبلك كوغو دعي أدو دالن باد سيحتي انتا إن لك باد كعباديستي وقت هذا انتا إن لك أيات كعباديستي waxaa laga yaabaa faralka oo dibridaysa salaadihi inaad ya Allah aad ku tukatay khayr kale oo samaysay inuu san jirin baa laga yaabaa laakiin ma aadan ku xisaabtamin noloshaadi dhabta ahayd ma aadan ku xisaabtamin adduunyadu dhaxsin weeyaan adduunyadan Ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu inoo keenay inaan aakhiro ku gaadhno wa anfiqu mimma razaqnakum min qabl an ya'tiya ahadakum al-maut min qabl an يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. بسم الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موضوعا ما أنت كهل ربنا وحويان وقتك أولا فائديستو iyo waqtiga oo la dayaco nadaamada iyo shalaytada uu leeyahay Ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu yiri asagoo nagu boorinaya inaan waqtigeena ka faa'iideysano يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. إلهي سبحانه وتعالى أسأقوا أنه قد هي الدنيا إنان إسكاقا مشغول إن ذكر جيسا والدنيا محوقها مشغول كذا أن ذكر جيسي حسوستي سي عبادة إن أنكاقا مشغول يا وحولي هي يا أيها الذين آمنوا كوي إيمانك لغا هليو لا تلهكم يينن إذن مشغولين أموالكم ولا أولادكم هكاقا مشغولين أولادين يا عرورتين عن ذكر الله إلهي سبحانه وتعالى حسيدي سي عبادة سي هكاقا مشغولين goodi baa la raaciyay qofkii isku mashquuliya adduunyadan inay khasaare iyo nadaamo u tahay waman yafcal dhalika fa ulaa'ika humul khasiruun ba ilaahay yiri qofkii adduunyada ku mashquulo oo dhikriga ilaahay kaga mashquula waa kuwa khasaaro ku sugan ba Allah subhanahu wa ta'ala uu yiri wa anfiqu labaha mimma razaqnaakum wixii aad idinku irsaaqnay wax kala baxa min qabli an ya'tiya ahadakumul maut midkiin intuuna u imaanin mawtka فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب ومركز أوله إله يوم حد يجود بيجي ويده حرام حد يجود ويده فأصدق أن صدق استوى وأكون من الصالحين دتك وناكسن عن كمد أهذا مركز هذا حل إن دامه وحبترين ويا إله سبحانه وتعالى وحكوليه ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها إلهي مد بيجها ينف هذه أجش هذا إماته والله خبير بما تعملون إلهي بوحو أكسويه وحاد عمل فليسان marka qofka mu'minka ee muslimka ah waxa looga baahan yahay waqtigiisa inuu ku xisaabtamo waqtigaada inaad ka faa'iideysato ayaa loo baahan yahay saaka waad soo toostay adduunyaad ku mashquushay gabalka kugu dhacay adoo daalan baad seexatay inta in laag baad ka cibaadaysatay waqtigaada inta in laag ayaad ka cibaadaysatay waxa laga yaabaa faralka oo dibridaysa salaadihi inaad ya Allah aad ku tukatay khayr kale oo samaysay inuu san jirin baa laga yaabaa laakiin ma aadan ku xisaabtamin noloshaadi dhabta ahayd ma aadan ku xisaabtamin adduunyadu dhaxsin weeyaan adduunyadan Ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu inoo keenay inaan aakhiro ku gaadhno waa muxuu ahaa buundayar oo biyo kor saaran weeyo oo laga gudbahayo weeyaan
wixii ka shisheeyay maba aadan fiirininba. ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu kuu abuurtay keliya cibaadadiisa ayuu kuu abuurtay. haddaad cibaadadiisa kaga mashquusho adduunyo waqtigaada oo dhan nadaamo iyo wuxuu kuugu sugnaanayaa muxuu ahaa xilli aan lagu soo celin doonin inaad ka nidaamooto. marka ka faa'iidayso waqtigaada ha ku dayicin wax aan ku anfacaynin, ha ku dayicin cibaadada aad ilaahay subxaanahu watacaala dikrigiisa haysa bas ayaa ku anfacayso. haddii muxuu ahaa salaaduhu kaa khaldan yihiin sunnooyin fara badan raacso. haddii aad muxuu ahaa aad soon yartahay wax sadaqayso, waqtigaada ka faa'iidayso. waqtiga wuu ku dhaafahayaa, maanta ma soo noqonayso, shalayna ma soo noqonayso. maalin kasta oo kugu darmatana waa waqti cimrigaada ka go-an weeyaan. ilaahay subxaanahu watacaala markaad aakharo tagtana wuu ku weydiinayaa waqtigaada waxaad kaga soo faa'iidaysatay. xadiid nabi sal lla alay wasalam uu ku leeyahay muxuu ahaa laa yazuulu qadama cabdin xataa yus'ala can arbacin. maxaa ku jiray can cumrihi fiimaa afnaah. cimrigaadi maxaad ku bixisay? cimrigan aad arkayso xilli baad caafimaad qabtaa. xadiis baa nabi sala allahu calayhi wasalam uu noogu sheegay ilaahay subxaana watacaala markaan hor istaagna aakharo inay nala weydiin doono waqtigeenna waxa aan ku bixinay. facan abi barzata nadlah ibnu cubayd alaslami qaala rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam laa tazuulu qadama cabdin yowma alqiyaamati xataa yus'ala can arbacin can cumrihi fiima ablaah wa can cilmihi fiima facala fiih wa can maalihi min ayna iktasabah wa fiima anfaqah. marka nabi sal lla alay slam wuxuu leeyahay xadiidkan qofka kama uu zuulayo inuu hor istaago alla subxaanahu watacaala, inuu hor istaago kama uu zuulayo ilaa uu ka weydiiyo 4 shay. ilaa uu ka weydiiyo maxaa ku jira cumrigiisa, wixii uu ku soo bixiyey, cilmiga uu bartay, wixii uu ku sameeyey, maalkiisa meesha uu ka keenay iyo wixii uu ku nafaqeeyey, wa can jismihi fiima ablaah. marka qofka muslimka waxaa looga baahan yahay inuu muxuu ahaa waqtigiisa ka faa'iidaysto. caafimaadku waa waqti, caafimaadka ka faa'iidaysa waa waqti. waxaa laga yaabaa xilliyo badan inaad caafimaad qabto, markaad xanuunsatay inaad tamanin lahayd inaad dib u caafimaada aad soo cibaadaysatid. waqtigana xilli aad mashquul tahaa jira, markaad waqtiga haysata ka faa'iidayso. waxaa jirta acmaal yaryar oo muxuu ahaa iska fadli badan ood waqtigaada in badan kaga faa'iidaysan karto. waxa weeye waa dikriga ilaahay subxaanahu watacaala, inaad dikriga ilaahay afka ku hayso. subxaana allah walxamdu lilah walaa ilaaha ila allah walaa xawla walaa quwata ila billah. inaad salliga nabiga badiso. almaalu walbanuuna ziinatu lxayaati اddunyaa walbaaqiyaatu الصaalixaatu khayru cinda rabbika hawaaban wa khayru amala. alla subxaanahu watacaala wuxuu leeyahay almaalu xoolihii iyo walbanuuna wiilashii ziinatu lxayaati اddunyaa, adduunyada quruxdeeda iyo dhaldhalaalkeeda weeye. waa dikriga iyo fadliguu leeyahay markaan ka hadlayna iyo waqtiga muxuu ahaa yar in lagaga faa'iidaysto kalimaad yar oo miisaan xasanaad oo weyn kuu fuula. alla subxaanahu watacaala asaga oo inoo sheegayo inoo sii fasirhaya wuxuu yihi walbaaqiyaatu الصaalixaat. baaqiyaadka saalixaadka ah baa khayrun khayr badan cinda rabbika hawaaban, ilaahay agtiisa abaalmarin ku khayr badan, wa khayrun amala, yididiilana ayaka ayaa ku khayr badan. dikriga ilaahay adoo xajisa weeyaan. marka walaalayaal waxaan isu dardaarmaynaa inaan waqtigeena ka faa'iidaysano, inaan cibaado ilaahay kaga faa'iidaysano, inaad qof muslim ood caawisa kaga faa'iidaysato, inaad muxuu ahaa meel khayr ood ka qayb qaadata aad kaga faa'iidaysato, waxyaalo fara badan aad waqtigaada aad kaga faa'iidaysato. waxaan naftayda iyo naftiinaba u dardaarmaya cabsida ilaahay. قد أتينا وبشوق للقاء نطلب الله علوا وسنا. إننا قوم خلقنا قيمون، إننا قوم خلقنا قيمون. مثل سحب الشوق طرنا كالغمام.